بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا وناكسن داوديال meel kasta oo dunidan ka joogtaan halkani waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo si toos ah idiga soo gudbinaya warkii caalamka qodobada ugu waaweyn ee warkan aad ku maqli doontaan waxa kamid ah waxa magaalada tan Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran taas oo lagu xuseeyay ololaha wacyigelinta 16 cisho ee ka dhanka tacadiyada loo geysto haweenka wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta boqosho ku tagay xaafadda Isli ganacsatada xaafadda ayaana soo dhaweyn u sameeyay wasiirka shirkadda Maru Boat Service oo ka shaqeyn doonta adeega tayo dhowrka badeecadaha dalka soo galay iyo waliba kuwa ka baxa ayaa waxa maanta laga daahfuray magaalada Muqdisho Abaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Abaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah abaanada Soomaalida ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka shacabka dawladda Soomaaliya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan oo kamid ah wararka caalamka madaxweynihii ugu muddada dheeraa adduunka oo ah madaxweynaha Ecuador iyo Guinea ayaa xadii la soo dhaafay waxa la doortay mar lixaad qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan isu soo noqod wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan halkan waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo aan warkii caalamka idiga soo jeedinayo waxaana warka idila socodsiin doona hadii Rabbiga awood leedmo anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen aan ku bilaabay magaalada tan Hargeysa waxa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran taas oo lagu xuseeyay ololaha wacyigelinta 16 cisho ee ka dhanka tacadiyada loo geysto haweenka waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada hay'adaha wada shaqeynta wasaaradda leeyihiin iyo waliba marti sharaf kale ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay xubnihii ka tirsanaa dawladda Soomaaliland iyo waliba wasiiradii ka soo qayb galay ugu dambeynna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Mustafa Godane waxaanu ka warramay ahamiyadda ay maalintan leedahay isagoona sheegay kiisaskii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah tacadiyada haweenka ee ay wasaaraddu soo bandhigtay waxaana hadaladoodii ka mid ah sidan 25 Noofambar 1991 ayaa si rasmi ah loo bilaabay ololaha wacyigelinta 16 cisho si dadweynaha adduunku loogu baraarujiyo sidii loogu midoobi lahaa wax ka qabashada iyo la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo dadka nugul ka wasaarad ahaan sanad walba intaas muddada sanad walba waa la xusaa waa la weyneeyaa dhammaan maanta halkan joognana dhammaan gobolada dalka oo dhan baa laga xusayaa mushkiladda ina barbar socotaa waa habkii dhaqanka ee bulsho ahaan aynu cusub xalintadiiba xeerarkeennii iyo runtii diinteennii waxyaabo fara badan runtiigana diidaya taana waxaan jecelahay wacyigelin fara badan oo ay wasaaraddu ay samayso iyagana in lagaga jeegudbo oo runtii inaynu maalin walba maansoor isugu nimaadno oo xaflad aynu qabsanno oo waqti badan lagu lumiyaa macno badan samaysan waa isleeyahay laakiin waa in qorshe cad oo qayaxaya sanadkan sanad ku xiga maxaa aynu runtii inoo qabsoomi kara maxaynu carqaladayna haysta deetana iyadana dariiqa qodobada 1 iyo 2 iyo 3 koron saa loo kobogasiyo wasaaraddana waan ku bogaadinayaa dastuurkuna dadka xuquuqsiga uu siiyey hooyada hala ilaaliyo walaasha hala ilaaliyo diinta islaamka lagu sugnaado hooyada kaalinteedii ha buuxiso qoyska halkii kaga jirno waqtiga aynu soo shaqeynayna maaha waqtiga ugu badan waalidka ubadka hala qaataan ubad wanaagsan oo la garanayo halkay ka soo jeedaan oo damiir leh oo waxa xun ka baydhaya hooyooyinka ku dadaalaan inay soo saaraan waxaan u baahanahay xeerarka dabraya dabarka noqonaya ee maxay ka dhan ah cid kasta oo wargeysatay dad islaamay nahay maxay wax laga yaabaa xanuunadan iyo waxyaabaha jira inay maxay ku imanayaan dunta iyo dadkaas ay gelayaan ilahayna maxay qofkii kama jiro dunta bulshada loo saameynaysa waxaan leeyahay waxaan leeyahay kasta hawsha ku xirman ee ugu horeysa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoysku wasiirkeeda iyo agaasimaheeda waxaa farxada in bulshada inteedii codka lahayd ama aqoonta lahayd ama maxay ahaydeen ulul amriga ahayd ay ku baraarugsan tahay xaaladda iyagaana runtii ilaahay kula xisaabtami doonaayo maadaama xaaladda ay og yihiin maxay ahaydeen isla markaana ay iyagoo fududahay inay ama adin ama gacan ama maxay ahaydeen qalin muhiim wax kaga qabtaan inaanay dhayarsan waxa ugu badan ee inta dhibaatada inaan ku noolyahay waa social media taabashada ay haystaan wax ku loo kordhinaya sida iyo daroogada oo soo badatay iyo daroogada soo badatay waa qof islaam
oo islaan ku dhashay oo islaan ku ashhaadanaya waxa ay baxeen ku hadlayaan kuma kacana ducaali yahay berigii hore waxaa dhici jiray wax la oran jiray kufsi laakiin maanta waxyaalo ka daran baa dhacaya waxa ugu dambeeya dhacayana waa dilitaan taasina waa in laga hortagaa oo sidii waxaas oo dhan looga hortagi lahaa waa muhiim in laga shaqeeyo waa maalin qiimo leh waa maalin qurux badan waa maalin la yidhi cabira ruux walowba dareenkaaga hadday tahay haweenka iyo dadka nugul dumarku markay iska daayaan ayagu takoorka ay ka daayaan kuwa nugul ayaa iyagana dee laga daynayaa takoorka sharciyadeennu way socdaan laakiin waxaynu u baahannahay siday u kala mudnaanta u leeyihiin inaynu u dadejinno wasaaraddu way dadaalaysaa xeerar fara badan way keentay kuwana insha allah haddii la idhaahdo sida ay u soo baxaan baan uga shaqayn doonaa wasaaradda warfaafinta wax kastoo bulshada la gaadhsiinayo oo lala wadaagayo oo wacyigeega wax lagaga bedelayo door weyn baanu ka qaadan doonaa insha allah haddii la idhaahdo waananu ku garab istaagi doonaa wasaaradda iyo cid kastoo ka shaqaynaysa waxaan xoojinayaa in la xoojiyo arrimaha noocan markay dhacaan in hay-adaha sharciga gacanta loo geliyo waxaan xoojinayaa in la dhammaystiro qabyo kasta oo xeer oo jirta oo lidi ku ah sidii xal loogu helaa tacadiyada dhacaya waxaynu u baahannahay waalid walaal hay-ad ku shaqo leh in gacmaha la isqabsado ururada bulshada in gacmaha la isqabsado waxaan kula talinayaa maxay ahayd hay-adda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir in sare loo qaado wacyigelinta gender basic violence-ga ayaan kaa codsanaya waxaa lagu keenayaa qoys dhan oo naafa ah adigu dhibaatooyin badan kuwa aan dabka shidan caruur dibadda hurudda kuwa waalan yacni dhibaatoo dhan baa lagu keenaya marka taa haddaan intaa kaga gudbo runtii dhibaatadu adduunku way ka dhacdaa weligeedna way ka dhacaysa wayna jiraysaa tacadina wuu dhacaya muhiimaddu waxa weeye maxaa laga qabtay warbixintii agaasimuhu halka ka akhriyey matalan sanadkii hore waxaa dhacay sanadka mee 226 kufsi waxaa ku eedaysnaa 280 eedaysane waxaa la soo qabtay 240 eedaysane intaasi gacanta dawladda ku jirta wasaaradaha waxaanu ka hawlgalnay inaan lagu dhammayn hab fudud oo sulx ee sharciga la horgeeyo waagaag daawadayaal kaasna waxay ahayd munaasabad lagu xuseeyey ololaha wacyigelinta 16 cisho ee tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay xaafadda Islii ganacsatada xaafadaasi ayaana soo dhaweyn ballaaran u sameeyay wariyaha Saciid Qarafaan ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta markii ugu horeysay booqasho ku yimid xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi tan iyo intii uu la wareegay xilka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiir Aadan Barre Ducaale looguna mahad celinayay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu qabtay gudaha xaafadda guddiga ganacsatada Islii ayaa soo qaban qaabiyay iyadoo ay ka qayb galeen xildhibaano Soomaali ah oo ku dhawaad 10 mudane gudoomiyaha baarlamaan deegaaneedka caasimadda Nairobi odayaal dhaqan iyo haween gudoomiyaha guddiga ganacsatada Islii Xaajiyare culimada iyo marti sharaf kale oo kulanka soo xaadiray ayaa hadlay maanta iyo sharafta maanta lagu muujinayo waa mid adig u shaqaysatay waana mudan tahay nin walba wuxuu keensada ayaa lagu ammaanaa mis lagu cambaariyaa intaasoo isbitaalad madrasad dhistay intaasoo masaakiinad caawisay intaasoo masaajid ayaad dhistay mar kasta magaca iyo howda Soomaalida waa u taagneed waana u dagaalami jirtay adooba wasiir ahayn iska xildhibaan ahayn taasay dowladdigaas ayaa sharafta maanta ah oo isku keentay inaan ku ammaano inaan ku sharafno waa mid oo adiga hore u soo shaqaysatay mudane wasiir waxaan halkan saaka ka ballan qaadaynaa annagoo Soomaali ah walaalada ah inaan garabkaaga nahay gadaashaadana ku daba feelsannahay waxaad ogtihiin aadan isagoo oo hadda masabka uu hayo masab aan gaarsiisnayn
haya ayaad ogeydeen wuxuu inoo qabtay. qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in Aadan Barre Ducaale uu hogaamiye u yahay muslimiinta iyo Soomaalida degan dalkan Kenya. anagu sahan baan u kala baxnay asagana meel buu sahan tagay anagu sahan baan u baxnay meel abaar oo colaad ka jirto aan waxba jirin baan ka dul dhacnay asaguna nasiib wanaag meel roobka uu ka da'ayo oo barwaaqo ah oo daaq leh ayuu ka dul dhacay nin aan lagu kalsooneen lama sii laakiin kuwa kala wasiiriinta kala dad aan lagu kalsooneen waa la siin karaa marka taa waxaa caddaynaa Aadan Barre in lagu kalsoon yahay Soomaali weyn lagu kalsoon yahay waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan ku baaqo midnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo qalbiga ka soo go'day oo aan iska weheshano wax walba oo beylahada iska dugsano oo isqabqabsashada iyo hoos inaan isu liidna maaragtay aan ka baxno waxaan hadana aad ugu faraxsanahay ani shakhsi ahaan waxaan ahay loodka ugu horreeyay ee Garissa Boston Secondary School waxaan ahay admission number 282 from 1 to from 4 aniga iskuul soo bixisay ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga dalkan Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa munaasabada ka hadlay wuxuuna hadallo mahadnaq u jeediyay dadkii xafladda soo xaadiray isagoo oo ka hadlay waxyaabaha muhiimka ah ee xilligan looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay iska kaashadaan degan Nairobi khaasatan xaafadda Islii xaalad macdubarde هذا في عين صومه وهذا يقول لنا يا جوديا كان عصبتها وقامنا يا chairman كي vice chairman كي مدحدة وعنا موجسين إلى أمة الصومالية خاصة حافظة دقن إلى مثلا صومالية جيسكا إدل مثلا أي مثلا صومالية كينيا أي مثلا صوماليا إثيوبيا يا صوماليا يا جيبوتي أنت لما شفت لي أنت سأل مثلا إنك سؤال كسر جونو ولا رمي ودك كينيا ما كان بدي أروح عليها وما سمتي قف ما كوي ما ذكر باسبور ملي والي قبتي بنغالي جيجي نمنا إحسان وقربا إجال كربلا ذكرت كبسين وبدأ أبوها للشين صدقة آد بحستين شخص أنا واتفائلي بوش أنا وانفائلين أنا وحنا مكانات ملولين أمين نما أسميسي سومالي إنتو وين سوكر وانا قوان دين تمانتا وها أوها ريا وتاعن مانتا ودنكن ومدى الصومالي iyo culummadeeda iyo maalqabeenka ganacsatada ilaahay xoolooda habadiyo ayaa lagu dhisaa xoolooda lagu dhisaa masjidka Saciid Qarafaa Universal TV kada Maru Boat Service oo ka shaqeyn doonta adeega tayo dhowrka badeecadaha dalka soo galay iyo waliba kuwa ka baxa ayaa waxa maanta laga daafuray magaalada Muqdisho wariyaha Abshir Cabdullaahi ayaa warkaas waxa uu ka soo diray magaalada Muqdisho shirkadda Maru Boat Service ee ka shaqeysa adeega tayo dhowrka cunnada daawooyinka iyo waxyaabaha dalka soo gala kana baxa ayaa maanta Muqdisho laga daafuray munaasabada daafurka shirkadda Maru Boat Service ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaddan ayaa xoog saari doonto adeega guud ee tayo dhowrka dalka oo caqabado badan ka taagnaa shirkadda ayaana keentay qalab casri ah oo lagu baarayo waxyaabaha dalka soo galaya kana baxaya shirkadda ayaa sidoo kale xiriir leh shirkadda Intertech oo ah shirkad caalami kana shaqeysa adeega tayo dhowrka Maru ayaa shatigan shaqo waxa siisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya iyadoo aragtay qalabka iyo shaqaalaha khibradda ay u leeyihiin hawshan Diini Maxamed Diini gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka iyo Suldaan Mooli Sheekh Jaamac ayaa sheegay in loo baahnaa shirkaddan waxaana ay sheegeen in dalka uu ka reesan doono in la soo geliyo waxyaabo qaldan shirkaddana ay timid xilli muhiim ah marka awalan horta kambanigan mashruucan cid kasta oo wada waan u hambalyeynaya
waana ku dhiirigelinaya waana mudan yihiin in la taageero marka labaadna yani waxaan leeyahay in wacyigelin badan lagu daro oo shirkaddu waxay qabanayso ama shirkadda kuwaan lamid ha ahaato ama iyada ha ahaatee in ummadda lagu wacyigeliyo waxa ay isticmaalayaan inay iska hubiyaan waxaan leenahay walaalaha kambanigan abuuray u istaagay inay naga kontarolaan waxa imaanaya wax baxaya dalka ay naga qiimeeyaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin kudiyasho baad mudan tihiin sidaas daraaddeed waxaan leeyahay hambalyo waana bogaadinaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug Faadmo Fande iyo xildhibaan Shukri Weerax oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in shirkaddan ay timid xilli loo baahnaa waxaana ay sheegeen in dhanka tayadhoorka uu duleelo badan uu ka jiray marka shirkaddan inay timaado maanta oo Soomaaliya ay leedahay inay baaran karto waxay u baahan tahay inay caafimaad qabaan inay waddanka u fiican yihiin inay dadka u fiican yihiin jirka u fiican yihiin waa aragteen adduunka kansar ku soo badanaya kansarka waxa keenaya cuntooyinka iyo maaragtay daawooyinka iyo meelaha gobolada la seexanayo kaleeto waxaas oo quality lahayn ayaa keenaya waxaas oo dhan marka waxay naga baahi tiri kartaa shirkaddan alle ku hadlay afka xildhibaanada dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa oo si farxad ah iyo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkan Merubot waxaan leenahay guul u soo hoyatay Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynuhu hormuud u yahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ha ka qayb qaateen caafimaadka shacabkooda waxay idaacadaha ka sheegay madaxweynuhu Soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa waxa lagu darayaa oo madaxweynuhu ku darsada ay xaq tahay Soomaali caafimaad qabta Maxamed Cabdi Jaamac oo ka tirsan qaybta hubinta furdada iyo mid kamid ah ganacsatada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sidii hore ee shirkadaha ay ku shaqeyn jireen in si ka duwan ay ku shaqeeyaan waxaa kaloo jirta waxyaabo dalkeena ka baxa oo dibadda aynu dhoofino haddaysan markaa haysan shahaadooyin la aqoonsan yahay ama quality control la aqoonsan yahay haddaysan haysan adduunka way adagtahay in wax ka gadno oo dalkeena aynu u dhoofino ama wax dalkeena ka soo baxa marka arrintaas waxay naga saacidi doontaa shirkaddan aan isleeyahay shirkadahan isxambaarsani in badeecada dalka ka baxda inay adduunka gaari doonto maartay adduunka aan wax ka gadi doono aan isleeyahay Comesa iyo EEC oo hadda aan ku biirayno kale shirkadaha wax u controla waa shirkaddan hadda waa Merubot iyo Intel so waa inaan ogaanaa inay international tahay wax nooga halaabaya ma jiraan qofka wax soo dhoofinaya iyo baqin wixii si oo nadiif ah oo uu ogyahay inta laga control inuu ka xajin karo barito xoolihiisu xalaal yahay ayuu la imaanayaa meesha gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdikariin Gaweere ayaa tilmaamay in laga maarmay shirkadaha ajnabiga ee tayadhoorka ka shaqeyn jiray shirkaddan ayuu sheegay inay timid iyadoo baahi loo qabay marka waxaan leenahay soo dhawaada waa mahadsantihiin waa shaqooyinka loo baahan yahay dalkan maalinba waxbaa nagu soo biiraya heelan quality controlka marka hadda nagu soo biirana waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin waan gacan siinayna anoo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed oo waliba shaqadeena ugu badan anaga rugta ganacsiga ay tahay wax soo saarka dalka inaan iib geyno iyo warshadeyntiisa labada shaqo ugu badan waxa kale waa iska kab laakiin wax soo saarka dalka in rugta ganacsiga inay ka shaqeyso iyo warshadeynta waa labaduba kaba maarata quality controlkan hadday warshadeyn noqoto iyo hadday noqoto maxaan ku radaa wax dhoofinba waa labada meel oo aan ugu baahannahay marka waxaan leenahay walaalaha soo dhawaada waa iskaashanayna waana mahadsantihiin Abshir Abdullahi Amiin Universal TV Muqdisho abaan Yuusuf Cismaan Cabdullahi abaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah abaanada Soomaalida oo qaab kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada tan Hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya abaan Yuusuf Shaacir oo arrimahan iyo kuwa kale ba ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisa sida ilaahay baa keligii mahad leh saxaafadda way idinka mahadnaqayaa kulankan kelmad aada u kooban ayaan doonayaa maanta inaan idhaahdo shir guddoonka aqalka shacabka ee Soomaaliya ee xamar ku yaala ayaa war ka soo baxay argagaxle runtii argagaxle annagu dadka diinta iyo dhaqanka labadaaba ilaaliyaanu nahay shir guddoonkaas gabadh ka mid ah ayaan dhegaystay muuqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodaysaa waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in de waxaynu xataa ku afka soo marin karanaba maaha in dadka ragga iyo dumarku guurkii aynu naqaano inta laga guuro iyagu wax isu doontaan
wax caalamul galbeed laga keenay ama dhaqankan galbeedka iyo gaalada laga soo waariday marka gabadhaasi waxay leedahay dadkii haddii aadna ilaalin weydaan oo iyadoo marmarsiya ka dhiganaysa diintii iyo culimadii marmarsiya ka dhiganaysa waxay leedahay waa la wada gaaloobaya oo sidanaa la noqonaya oo aakhirkana waxay leedahay haddaan xeerkaa jinsiga meel marin waayo muqdisho way iskaga tegaya waa arrin runtii qof kastoo islaama argagax gelinaysa oo naxdin leh arrintaasaan doonayaa maanta inaan kelmad ka idhaahdo inantaa waxaan ku odhan lahaa horta ilaahay u soo noqo ummaddani waa ummad islaama ummad waxaasi ka suuro gelayaan maaha waxaan ku xusuusin lahaa gabadh iyana wasiir ahayd oo kaa horraysay oo weliba gabadha aqoon baan u lahaa inay xeerkan keentay baarlamaankii hore laakiin laga diiday waxaan aad u hambalyaynayaa ugu bogaadinayaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee la odhan jiray muuday oo si fiican oo diiniya oo dadnimo leh uga hadlay arrintaa hore oo isu hortaagay isaga iyo aqalkiisii hore ee shacabkii hore ee baarlamaankii horeba ay u diideen waa ku bogaadinayaa runtii soomaalida odhan jirtay meel aar ka kacay atoor fadhfadhiisay gabadhan maanta hadashay waxaan leeyahay annagoo weliba ku nasteexaynayna arrintaasi suuro geli mayso dad islaama baanu nahay dad dhaqan le baanu nahay dad waxaasi ka suuro gelayaan ma nihin adiguna ka noqo adiga iyo cidda mashruuca ku soo siisay midna u suurto geli mayso inantaa intaasaan leeyahay 3 qolana fariimaan u dirayaayoo mid waa madaxweynaha xasan sheekh dee madaxweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaalna waa ku jirtaana weji islaamiya u dhigaysaan halkanna waxaanaa ka socda oo tii halkii ugu dambaysaya dee bal dib isugu noqdo oo arrimahan hoosu eega oo madaxweynehu arrintaa mas-uuliyaddeedu aday ku hoos imanaysaaye wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalkaa lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxaa leeyahay nin baa beri lagu yidhi inantii heblaa kuu soo heestay wallaahi wuxuu yidhi inantaa ii heestay lama yaabaniye ragga u heehaa lahaa ayaan la yaabanahay buu yidhi golihiinna shacabka waa wada qabtaan arrintan waa shirguddoonkiinnii waxaan samaynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dembigani ku dhacaya arrintaa baarlamaanow ama golaha shacabkow ceebtaa idin dultaalla iska dulqaada oo golihii idinka horreeyey sidaa aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tegaye ceeb ha kaga tegina idinku qolada saddexaad aan la hadlayana waa puntland oo inantani ka soo jeedo dee reer puntlandow idinka lafdiinnu arrintu way idin soo gelaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexaddeedu way idin soo gelaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama markaa dumarka xuquuqdooda meel baa lagaga dhacaya marka waxaa la shubayo dhaqanka soomaalida dumarku waa cidda ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta intaasoo taariikhood baa dumarku leeyihiin inan sidaa loo eega baa laba reer isugu rogmadaa soomaalida waxaaba lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay bal maamaada xaggaad ka dhaafi gabadhay markaad leedahay xuquuq baa iga maqan nin waa maxay baa leeyi gebigiisuba waa inta gabadh ka soo hadhay baa leeyi waa hambo gabadh ka soo hadhay dhaqanka soomaalida xuquuq dumar ka maqani ma jirtee qarribaad baa ka maqanoo nin reerkiisii iyo qoyskiisii rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaarankaygu waxa weeye waxaa ka noqo kuu suurto geli mayso waxaan ceeb hayna kala tegi maysad haddaad kusii adkaysato adiga taasaan ku idhi madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynow arrintaa wax ka qabo oo soo gacan geli shacabka xamarra waxaan leeyahay dee mashaakilaadkan idinku qarxayaa arkaysaan waxaanubay ka bilaabmaya soomaaliyaba shacab xamarba maaha soomaaliyaba dagaaladan dabada dheeraada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaadkani waa waxaan cuqbadeedunba idinku qarxaya haddii wax laga qaban waayo intaas baan doonayaa maanta inaan halkaa ka idhaahdo somalilandna erey baan iyada odhanaya kooban khilaaf baa ka jira siyaasiya waxaan maqlayay gaalaa la sugaya islaamka waxaa la faray haddaa isqabataan kitaabka iyo sunnaha u noqdo
bal islaamku markuu idhaahdo gaalaan sugaya khilaafkayga xalilaysaa bal ka waran islaamnimadiisa maxay noqonaysaa taas dadweynahaan u dhaafayaa intaasaa hadalkaygu maanta ku kooban yahay waayo waxaan uga hadlayaa somalilan iyo soomaaliya iyo waxaa arrinkaygu maaha annagu caalamulislaam wixii ku soo kordhay mashkilada baanu ka hadlaynaa hankayagu halkaasuu joogaa haddii xamar ay ka hirgasho halkana iyadoo soconaysa noogu imanaysa waagaag daawadayaalkaasina waxaa abwaan yuusuf shaacir oo isagu ka jawaabayey hadal ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda Soomaaliya halkaad nagala socotaana waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo warkii caalamka si toos ah idiga soo gudbinayo magaalada London ayaa ururka Newham Somalia waxa ay ku qabteen munaasabad lagu dhiirigelinayo waxqabadka haweenka wariyahayaga Cabdirashiid Rashka ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada London munaasabadan oo ahayd mid sanadle ah oo sanad waliba lagu qabto magaalada London ayaa inta badan waxaa soo qaban qaabiya ururka lagu magacaabo Newham Somalia Association oo fadhigiisu yahay magaalada tan ee London. inta badan munaasabada ayaa sanad waliba waxaa lagu soo qaataa mowduuc ay ururka ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada London. maadaama sanad waliba ay ku soo qaataan ama ku soo bandhigaan mowduucyo kala duwan ururka Newham Somalia Association ayaa sanadkan mowduuca wuxuu ahaa waxtarka haweenka iyo haweenka sidii loo kaalmeyn lahaa sidoo kalena shaqo abuuris loo sameyn lahaa qaybihii kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay oo ugu badnaa haweenkii halkaasi lagu casuumay ayaa dhammaantood sheegay in muhiimaddu ay tahay in haweenka kaalin weyn laga siiyo ka qayb qaadashada qaybaha kala duwan ee bulshada. For the past 3 years, we've been supporting youth. So this is our third event. The first year, we've focused on young people who were struggling and going through crime, knife crime, and drugs. For second year, which was last year, we did graduate event. So we supported young people who finished universities with we did mentoring for them, and alhamdulillah, it's been very, very successful. This year, however, we're focusing on women and girls. And I was told, women, why women? And I said that women is the backbone of the community. maadaama nahay community oo dalkan ku cusub waa inaan muuqanaa waa inaan ka muuqanaa dadka waa inaynu dhaqaaq yeelanaa dad waxaanu nahay ganacsi maskax leh laakiin waa inaan ku dhaqanaa oo financial keenu aad iyo aad u fiicnaada saynu horumarno marka waxa weeye in la isku xirnaado waa muhiim bulshada marka isku xirnanta horumar bay gaadhaa bulshada isku xirnaanta faraaraq weeyaan Soomaalidu sideedaba isku xirnaata waa muhiim qurbaynu joognaa waa inaynu isdifaacnaa waa inaynu isku iskaalmaynaa waa inaynu is ogaanaa markaynu hoos isku ogaanaa aynu wax dhisi karnaa run ahaantii halkan maanta waxaan isugu nimi asagoo manahan inaan is caawino oo aanu support garayno each other run ahaantii Newham may haysan community hore oo caawiya laakiin iminka adamad waxaan doonaynaa inaanu noqono large community oo caawiya haweenka halkan waxaan u nimi maanta community-ga Soomaaliyeed oo isugu yimi maanta waxaan rajaynaynaa dumarka Soomaaliyeed inay dhiirigelin ay u noqoto inay community-gu sidaa isugu xidhnaadaan inaan waxaan doonaynaa sanad walba ay noqoto sanadkan oo kale wanaag iyo barwaaqo iyo barbash baan rajaynaynaa. gudoomiyaha ururka Newham Somalia Association Dr. Usman oo asaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay in la taageero haweenku ee la mid tahay taageerada bulshada. tani waxay ku hore kaga duwan tahay waxaan u qabanay ama lagu magacaabay Newham Somalia Association Women Empowerment oo dhinaca haweenka taana waxaa loo sameeyay runtii waxqabadka haweenka Newham ay sameeyeen iyagoo ah lafdhabarta bulshada mar walbana danta guud iyo hawlaha u taagan ayaa Newham waxay ahayd meel markii hore runtii bila community kala burbursan oo way dhiseen community dhisan bay ka dhigeen community wada socday ka dhigeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay halka ka sii wada community-da kalena waxaan leenahay ku dayda. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashki Universal TV London. xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland warkan waxa inoo hayo wariyahayaga Cali Qamaaciil oo ku diyaariyay magaalada Hargeysa.
maxamed faarax cabdi xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo Soomaaliland ugu jawaabay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. maxamed faarax oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxa uu yiri tan iyo intii labada xisbi mucaarad ay ka dhawaajiyeen kuna dhawaaqeen go'aankii ahaa in madaxweynaha muddaxileedkii sharciga ahaa ee shacabka Soomaaliland ay doorteen uu dhammaaday 5 sannadood. waxaa iska soo dababaxayay dhawaaqyo runtii aad u fara badan muddo 8 cisho ah waxaynu arkaynay wasiirro la soo kallifay oo waxaan shaqadoodii ahayn ka hadlaya oo inta loo soo sameeyay schedule maalinba lagu yidhi nin hadal wasiiradaasoo iyaga iskugu filnaaday inay haddana iyagu iswada beeniyaan waxay taasi ku tusaysaa dayowga ku dhacay xukuumaddii kulmiye ee muddadii sharciga ahayd ee shacabka Soomaaliland ay soo doorteen waqtigeedii dhammaaday. waxaad arkayseen wasiirna 2 sannadood ee la kordhiyey muran bay keeneenoo waan ka noqonay sanad baan ku qabanaynaa labadii doorashaba. waxaad arkaysoo kale haddana mid kaloo leh 2 sannadood waa sharci oo wax laga noqonayaa ma jirto. waa 2 jawaabood oo kala duwan waa 2 hadal oo iyagu isbeeninaya isburinaya. waxaad arkaysay wasiir leh wada hadalkii baan diyaar u nahay oo albaabadeedu way furan yihiin oo caqabad badan bay murankeenu ugu keentayoo danta Soomaaliland waxa ku jirtaa in la wada hadlo albaabka madaxweynuhu inuu furay kaayaguna furay diyaar baan u nahay. haddana negas dheegi waxaad arkaysay wasiir kale oo arsil isagoo afkiisu weliba waa saayid oo wuxuu ku hadlayaa mid isaga gaar dhabarka malaha loo soo taabtayoo oo wasiirka boosaayo isgaarsiinta wuxuu ku leeyahay wax aliyaale wax wada hadal la yidhaahdo ilaa ay ka noqdaan sharciga ay nimankaasi sheegeen wax wada hadal furan marka ninkaas anaga noo jawaabi maayo laakiin wasiirkaas uu jawaabayaa uu leeyahay waxaad ku hadlaysaa waxba kama jira xageed ka keentaa adeer cidaan anagu la hadlaynaa ma jirta annaga meesha haysanay. wasiirka kalena wuxuu la hadlayay wasiirkii hore muddada ka hadlayay 2 sano muranka keenay. waxaad arkaysaa mid isagu waxanba ka daranoo agtiisa lagu dhimanayo xumadii agtiisa ku leeyahay lagu dadka ku leedayaano baaraasitimoolo dadka ay u jeefaano mas'uuliyadiisii gabayo shaqadiisii sharciga ahayd ee ummadda mushaharka ku qaadan waayay garan waayay inuu ka soo baxo gudana waayay hatta ilaahay kaga cabsan waayay waayo markaad mushahar qaadanayso dhimbiil baad liqaysaa markaad waajibkaaga gudan weydo oo isaguna ka hadlayaba wadani cidda laga dooran doono waa mushkilad kale oo fool xun la yaabsaba. hadda isagu waa kulmiye waa wasiirka xukuumadda ee musabix u shaqeeya wuxuu ka hadlayaa wadani xirsi baa laga dooran doonaa aliyaali wax uga 15 oo ninkaa ku kallifay uun aan ahayn inay wadani gebigooduba ku riyoonayaan oo markii hore kii weynaawen ogeeno lahaa xirsi maxaa loo keenay meesha dhammaan wasiiradu waxa ku wada sakraasay in xirsi baa sidana waxay iska wada jeclaadeen halkaa xirsi joogo inay wada yimaadaan. laakiin maanta ana u sheegayo wallahi xirsi waa idin diyaar uu idin soo dhaweynaya haddaad xataa kursigiisa doontaan uu idin ka kacaya waayo de mushkilada aan wadani habaydu kuma dhicin jacayl aan wadani haneed ma hayo wadanina diyaar buu yahay cid kastoo ku soo hungowda siyaasadda kulmiye cid kastoo ku soo hungowda hogaaminta kulmiye cid kasta oo runtii niyad jab iyo qalbi xumo kala timaada cid kasta oo kala yani waxay filaysay filan waa ku dhaco wadani diyaar buu yahay waayo wadani waa xisbiga isbedel doonka waa halka dadka loogu dhayo boogaha maamul xumadu ka soo gaadho. waxaa idinka qurux badnayd intaad ka sheekaynaysaan jawaabta wadani maalintaasaa waa sharci 2 sano la kordhiyay iyo sharci maaha wada hadal baan ogol iyo ma ogol idinku aad isku wada duqeynaysaan waa nin walba intii aad xilkan haysay 5 sannadood wixii ummadan aad u tartayna soo bandhigtaa ma horta idinka qurux badnayd. waagaag daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo aan warkii caalamka idiga soo jeedinayay imikana qodobada wararka caalamka. madaxweynihii ugu muddada dheeraa adduunka oo ah madaxweynaha
dalka Ecuador Guinea ayaa axadii la soo dhaafay waxaa la doortay mar lixaad madaxweynahan ayaa dalkaasi waxa uu maamulayay muddo 43 sano wariyahayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga ayaa warbixinta si aan baqaaday ee ka soo dirayna magaalada London. marka laga hadlayo madaxweynayaasha adduunka oo dhan ayaa taariikh ahaan waxaa la sheegaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee madaxweyne noqda inuu yahay ninka markii lixaad la doortay axadii la soo dhaafay oo ah madaxweynaha dalka Equatorial Guinea ee bartamaha qaaradda Afrika Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. ninkaasi oo 80 jir ah ayaa markii ugu horeysay xukunka dalka Equatorial Guinea waxa uu military ahaan ku boobay 1979 isagoo ka boobay adeerkii Francisca Macias Nguema. wixii markaa ka dambeeyay isaga ayaa madaxweyne ka ahaa dhowr jeer ayaa la isku dayay in la inqilaabo ama la afgembiyo laakiin suurtagal ma aanay noqon. 43 sano ayay u noqotay markii lixaad in la doorto axadii la soo dhaafay iyadoo qolyaha mucaaradka ee la tartama mar walba ay sheegaan inay sii og yihiin inuu isagu guuleysanayo ay u arkaan wax walba isagu inuu maamulayo. taasina ay keentay in iyagoo suluugsan doorashooyinka ay ka qayb galaan ay ugu dambeysay tii axadii oo raggii la tartama ay sii saadaaliyeen. 95% ayuu ku guuleystay codadkii la qaaday dalka Equatorial Guinea. waddanka Equatorial Guinea waa waddan fakhriya laakiin 1996 la heray gaaska kaydka dabiiciga ah oo dalku uu barwaaqo yahay laakiin dadku ay ka baahan yihiin oo aanay ka faa'iideysan iyadoo lagu sheego guud ahaanba Equatorial Guinea dadka ku nool 1,400,000 oo ruux oo ah dad iyagu aan waxba haysan. waxaa lagu eedeeyaa Teodoro Nguema Mbasogo waa madaxweynaha dalka Equatorial Guinea inuu yahay nin aan ku wanaagsaneyn xuquuqda bini'aadamka oo aan ilaalin iyo weliba musuqmaasuq laakiin uu iska fogeeyo guud ahaanba eedahaasi oo dhan. dhinaca warbaahinta isma jecla dowladdu ta ay maamusho iyo qolyo dowladda saaxiib la ayaa ka jira dalkaasi Equatorial Guinea. waxaa kale oo lagu eedeeyaa madaxweyne Teodoro Nguema Mbasogo in xukunka uu ka qaybgeliyo qoyskiisa sida wiilkiisa oo lagu magacaabo Teodorin Magwe inuu yahay madaxweyne ku-xigeenkiisa oo weliba la arkay isagoo lacaga fara badan geystay wadamada Mareykanka iyo Faransiiska hantiyo uu ku yeeshay walow qaarkood la maxkamadeeyay. madaxweynahan iminka markii lixaad la doortay 43 sano ayay u noqonaysaa. waxaa dalkiisu uu xorriyadda qaatay sanadkii 1968 oo markaa dalka lagu magacaabayay Spanish Guinea laakiin markii dambe loo bixiyay Jamhuuriyadda Equatorial Guinea oo kamid ah dalalka qaaradda Afrika. marka la fiiriyo madaxweynahan iminka Teodoro iyo adeerkii Francisco Macias intaba waxaa lagu eedeynayay inaanay ku wanaagsaneyn xuquuqda bini'aadamka musuqmaasuquna uu badnaa laakiin eedaas mar walba uu iska fogeeyo. qolyaha mucaaradka ka ah dalkaasi waqtiyo kala duwan mar walba ay ka qaybgalayaan doorashooyinka waxay sii saadaalin jireen inuu isagu guuleysanayo marka la fiiriyo in wax walba ay gacanta ugu jiraan. waxay tusaale loo soo qaadan karaa sida ay sheegayaan mucaaradka ugu dambeeyay doorashada iminka ka dhacday maalintii axadii ee lasoo dhaafay ee 95% uu ku guuleystay inay tahay mid si quman aan markaasi loo abaabulin. waxaa kol dhoweyd lagu ammaanay markii dalkiisa xukunka laga saaray nidaamkii ahaa dadka in la daldalo ama la dilo taasoo ay ku ammaantay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa laakiin sida kale lagu eedeeyo inaanu ku fiicnayn Teodoro Nguema Mbasogo xagga xuquuqda bini'aadamka musuqmaasuqu uu badan yahay iyo wax isdabamarintu. qoyskiisa oo xukunka laga qaybgeliyo iyo mar walba oo loo arko dantooda gaarka reerkiisu inay fiirsadaan. 43 sano oo xiriir ah nin madaxweyne ka ah dunida oo weliba qaaradda Afrika ayaa waxaa loo tiriyaa musuqmaasuq iyo wax isdabamarin inay si aad iyo aad ugu badan tahay. waddankaasi Equatorial Guinea waxaa looga hadlaa afafka Isbaanishka, Boortaqiiska iyo weliba Faransiiska. wiilkiisa Teodorin Magwe ayaa waxa uu hanti badan ka samaystay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka California iyadoo mar maxkamad la saaray lacag aad u fara badan oo marna ay ahayd 37 milyan oo dollar marna ay ka badnayd iyo hantiyo kala duwan oo guryo iyo baabuuro la arkay. dalka Faransiiska sidoo kale la maxkamadeeyay iyadoo loo arkayay xoolo ay iska lahaayeen guud ahaanba dadka reer Equatorial Guinea in wiilkiisa iyo qaar ka mid ah qoyskiisu ay si gaar ah u leexsadeen. waa madaxweynaha markii lixaad la doortay ee dalka Equatorial Guinea madaxweyne Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
mahadsanid maxamed axmed xaaji cagmadhige ayuu ahaa daawadayaal wariyahaasi oo inoo soo koobayay warbixintaasi madaxweynihii ugu muddada dheeraha dunida Omar Lixaad axadii la soo dhaafay la doortay waana madaxweynaha dalka Ecuador iyo Guinea warbixintaasi ayaa guniya gabagabay gunaanad waxay u ahayd warkii TV-ga Universal oo si toos ah idiga soo gudbinaya studio TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxaa idila socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen aniga asxaabtii kala duwaneed ee studio TV-ga Universal dhamaantay waxaan idiga tagnaa nabadgelyo